taariikhda fog ee magaalada ceelbuur marka dib u milicsato waxa durba xusuusta dadkii yaqaanay ceelbuur ay sawiraysaa magaalo qadiimi qurux khayraad ilbaxnimo dadeed oo qarniyo jirsatay iyo dad ku wanaagsan martisoorka door muhiimana ku yeeshay kacdoonkii gobonnimo doonka ahaa dawladdeennii ka hor intaa oo isbiirsaday waxay ceelbuur dhaxal siisay astaan lagu ammaano geyiga soomaalida oo idil haddaba burburkii dawladdii dhexe kadib waxaa magaalada ceelbuur ay wajahday marxalad ka duwan siday ahayd waxaa isbeddel weyn uu ku yimid muuqaalkii bilicda wanaagsanaa oo ay ceelbuur caanka ku ahayd faras magaalihii mashquulka badnaa maqaaxyihii iyo ganacsiyadii xaddaafka ahaa ee ceelbuur gebigood maanta waa kuwa albaabada isugu laaban oo waxaana ku wehlinaya in yaroodada iyo dabaysha uun baraagihii lagu dabaalan jiray iyo galbiyoodyadii ceelbuur ee roobabka mahiigaanka xilliyada ay da'aan biyaha lagu kaydin jiray maanta waa qashinqub qodxaha lagu daadiyo dugsiyadii waxbarashada iyo xarumihii iskaa wax u qabsan lagu dhisay ee dadka loogu adeegi jiray muuqaalkooda ayuunbaa xusuus ahaan ceelbuur ugu yaal xeradii shiinaha buundooyinkii magaalada shirkolihii kubadda lagu ciyaari jiray xaruntii daawad ee fiyaalaha ahayd xerada sheekh maxamed faarax iyo dhammaan goobaha caanka ay ku tahay ceelbuur waxay u dumeen dayac iyo daryeel la'aan in ka badan 10 sannadood magaalada ceelbuur waxaa gacanta ku haya dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ku xididaystay degmada ceelbuur iyo deegaanada ku teedsan dadaallo ay sameeyeen dadka ku abtirsada ceelbuur waxay xilligii xasan sheekh uu dalka ka talinaya gudbiyeen codsi ku aadan in magaalada laga saaro dhaqdhaqaaqa al-shabaab si dib loogu soo nooleeyo dhaqdhaqaaqii ceelbuur iyo kaalintii ay kaga jirtay hormuudka degmooyinka gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tixgelinaya codsiga ka yimid dadka reer ceelbuur ayaa ciidamo Itoobiyaana u diray magaalada ceelbuur kuwa oo la filaya awood ahaan xilliga inay kula dagaalami karaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab magaaladaasi dagaallo muddo halkaa ku dhexmara al-shabaab iyo ciidankii Itoobiyaanka waxaa Itoobiyaanka u suura gashay inay gacanta ku dhigaan magaalada ceelbuur waxaase qabsashada magaalada ceelbuur ee ciidamadii Itoobiyaanka ahay ka dhashay dhibaatooyin ba'an iyo isfaham darro soo kala dhex gashay ciidankii magaalada la wareega iyo dadkii deegaanka waxaana ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee madaxweyne xasan sheekh ugu diray ceelbuur inay nabdeeyaan ay magaalada ka geysteen falal ka baxsan bini'aadanimada waxaana mar kale dadkii ceelbuur ay la kulmeen caqabad adag noloshooduna waxay noqotay mid u dhaxaysa laba daran mid dooro al-shabaab iyo Itoobiyaan madaxweynihii waqtigaasi xasan sheekh maxamuud oo aad ugu dhaganugulaaday baahiyaha iyo tabashooyinka ay qabaan dadka reer ceelbuur kana damqaday tacadiyada ciidankii Itoobiyaanka ahaa ay ka geysteen ceelbuur ayaa amar ku bixiyay in ciidamada Itoobiyaanka ay dib uga soo laabtaan magaaladaasi ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ee magaalada ceelbuur kadib waxaa mar kale qabtay dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo muddo kooban ay ciidanka Itoobiyaanka ka maamulayeen magaaladaasi waxayna nolosha reer ceelbuur noqotay mid dib ugu laabata noloshii cakirnayd oo aan dhaqdhaqaaqa muuqda lahayn iyo degmadii hormuudka u ahayd dalka oo sanado badan dhaqdhaqaaqa al-shabaab awgood go'doon ugu jirta 8 Febraayo 2017 doorashadii madaxweynaha talada dalka hadda hayee waqtigiisu sii dhamaanayo maxamed cabdullaahi farmaajo waxay dadka reer ceelbuur ku taamayeen in magaalada ceelbuur ay ka bixi doonto go'doonka ay geliyeen al-shabaab maadaama madaxweynihii la doortay uu ku dhawaaqay in al-shabaab muddo sanad gudahooda dalka looga saari doono dhammaan degmooyinka ay kaga sugan yihiin waxaase uu noqday ballanqaadkaasi qabo oo qawda maqashi waxna ha u qaban magaaladii intaasoo marxaladood soo martay haddana dadkeedii marna kamaanay daalin rajada iyo hamiga magaaladoodii taariikhiga ahayd ee dalka ka tilmaamneed dad wanaagga doogga iyo daljacaylkana ku caanka ahayd waxaanay mar kale abaabuleen kulamo iyo wadatashiyo lagu lafagurayo hanaanka ceelbuur dib loogu soo celin lahaa iyadoo aanay wax dhibaato ah la kulmin dadka ku nool magaaladaasi iyo deegaanada ku teedsan waxaa wadatashyadaasi isugu yimid mas'uuliyiinta dawladda dhexe kuwa maamul goboleedyada ganacsatada waxgaradka salaadiinta cuqaasha aqoon-yahanada iyo dhalinyarada hayb ahaan ku abtirsada magaalada ceelbuur waxaanay dhammaantood isku afgarteen in ceelbuur loo diyaariyo ciidamo deegaan ahaan halkaa ka soo jeeda aqoon fiican u leh magaalada ceelbuur iyo deegaanada ay ku teedsan tahay si ay u sahlanaato qabashada magaalada iyo badqabka dadka rayidka ee halkaasi ku nool loona helo ciidamo dabooli kara baahiyaha shacabka reer ceelbuur
waxay dadka reer ceelbuur lagama maarmaan u arkeen una doorbideen in howlgalkaasi uu hogaamiyo Axmed Xasan Siyaad oo ah aqoonyahan bartay culumta siyaasadda ku dhawaad 15 sano ayuu waday howlgallo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay al-shabaab uga sifaynayeen waddanka Soomaaliya waxaana xusid mudan in hoggaan uu ka ahaa dagaaladii adkaa ee al-shabaab looga saaray gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo gobolka Banaadir hadda waa taliyaha diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mudane Axmed Xasan Siyaad waa aqoonyahan khibrad qoto dheer u leh la dagaalanka argagixisada huwana aqoon maadi iyo diiniba ah hanan kara quluubta shacbiga reer ceelbuur lehna karti uu isugu hayo siyaasadaha ismaandhaafsan ee ku hardamaya magaalada ceelbuur gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxa lagu sifeeyaa inuu yahay shakhsi dulqaad karti howlkarnimo indheergarad dhaqan yaqaan dabacsanaan birimageydada ah inta oo isbiirsatay markii ay isla eegeen waxgaradka iyo aqoonyahanada magaalada ceelbuur oo isu tagay ay u garteen in Axmed Xasan Siyaad uu yahay shakhsiga kaliya ee maanta door muhiim ah ka qaadan kara dib u soo celinta magaalada ceelbuur iyo soo noolaynta magaaladii taariikhiga ahayd ee ammaanta iyo astaanta u noqotay guud ahaan degmooyinka Soomaaliya